بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay tahay maalin loo aastay World Obesity Day waxaan rabnaa fursad aan kaga faa'iideysano wacyigelin ku aadan xanuunka ama obesity wax loo yaqaan obesity ama cayilka waxa loo yaqaan markii jirka ay ku ziyaado dufanka taasoo keenaysa dhulka qofka inuu u nuglaado xaalad caafimaad waa la qaybiyaa ayadoo la isticmaalayo waxa la yiraahdo body mass index kaas oo ah ayadoo aan xogta laga soo qaadanayo qofka miisaankiisa iyo dhererkiisa waxa la yiraahdaa hadii qofkan BMI-giisu uu ka yar yahay 18.5 waa qof ka hooseeyo weydkii loogu talagalay wuxuu u baahan yahay in la caawiyo hadii 30 uu ka ziyaadana waxa noqonaa definition-ka ama taxriifka loo yaqaan obesity-ga cayilka markii laga hadlayo qaabo badan oo ku yimaada ama waxyaabo badan oo qofka uu leeyn karo waxa la yiraahdaa hadii familkiisa ama waalidkiisa kale ay aad u cayil yihiin asigana khatar ugu jira cayilka sidoo kale waxa keeni kara hadii sidii macnaha jirkeen waxa ognahay waxa ka jiro hormonal ama wax la yiraahdo metabolic shaqada jirka dhacaanada hadii isbedel uu ku yimaado sidoo kale ayana way keeni karaan wadankeen waxa ognahay in aad u badan daawadan loo yaqaan cortisolka dadka aad u qaataan ayuu ka raadinaya miisaanka inuu siiyo waxyaabaha inta badan obesity keena kamid ah hadii uu qaato wax la yiraahdo unhealthy diet oo ah cunto aan miisaaneen soo kale cunto aad macnaha macaankeedu aad u badan yahay oo kale qofka haduu qaato ama cunto dufankeedu aad u badan yahay oo kale haduu qaato waxa kale oo keeni kara qofka hadii uu qaato liquidiska ama cabitaanada macaanka zaa'idka leh iyo waxa la midka sidoo kale waxa keeni kara qofka haduu ku nool yahay xaalad stress ah way keeni kartaa si la mid waxa keenaya qofka hadii uu ku nool yahay xaalad la yiraahdo sedentary life ama xaalad la yiraahdo cuno cabo jiifo waxa loo yaqaan sedentary life qofka inuu cunto badan cuno oo jiifto oo wax activity ah uusan sameyn markii laga hadlayo communication-ka ama waxa ka dhalanayo obesity-ga waxa la yiraahdaa waxyaabo badan ka dhasho waxyaabaha horseeda inta badan waxa kamid ah in uu keeno xanuunadan ku dhaca wadnaha si la mid wuxuu keeni karaa xanuunka la yiraahdo stroke waxyaabaha kale oo aad ku weyn wacnaa qaybtan uu ka yahay waxa waaye xanuunka la yiraahdo macaanka nooca labaad obesity sida ognahay waa wax laga qaban karo wax looga qaban karo qofka ku marka hore in laga saaro xagga cuntada iska yaray cabitaanada macaanka badan oo aad qaadanaysid saddex ka bax nolosha ah cuno cabo jiifo ama sedentary life loo yaqaano ay sameey activity ama exercise xaaladda kale waxay tahay waxa jira daawooyin loogu talagalay in miisaanka lagu dhimo intaas hadii qofku wax u qaban waayaan isbitaalka dalmar hadaan u soo gudbo waxa diyaar kuuga ah qaybtaas waxaan u diyaarinay package dhan oo diyaarsan oo ah la talin iyo daaweyn xagga cayilka ku aadan nasiib wanaag sanadka la soo dhaaf gudihiisa waxa ku guuleysanay dhowr qof oo aan u sameynay qalliin kamid ah qurxinta ee loo yaqaan liposuction taasoo ah in dufanka la yareeyo qofkii ayadoo aan wax dhibaato ah loo gaarsiinin maantana alxamdulillah bulshadii ee lagu tirinayo dadka aan cayilneen shalan ay ahaayeen dadka cayilan maantana dhowrkii miisaan dhowr kiilo markii laga jaro kadib ayadoo aan wax dhib loo geysan alxamdulillah waa ku guuleysan Dalmar Specialty and Teaching Hospital. Higsigeenu waa caafimaadkaaga.